aan ku bilaabe Soomaaliya iyo Kenya oo xiriirkooda diblomaasiya oo in muddo ah baliitay mar kale ayuu xalay soo ifbaxay inuu sii adkaanayo kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku amartay safiirkeedii magaalada Nairobi in dalka uu dib ugu soo laabto halka midka Kenya uu joogay muqdishona lagu wargeliyay inuu dalka ka baxo. Hadal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu yiri dowladda Soomaaliya waxay aad uga xuntahay faragelinta joogtada ah ee dowladda Kenya ay ku hayso arrimaha gudaha iyo siyaasadda Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo ka hadashay go'aanka Soomaaliya ayaa sheegtay in aanu soo gaarin war rasmi ah oo looga dalbanayo in safiirkeeda ay dalka Soomaaliya ka soo celiso. madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo bishii November ayay waxa ay ku kulmeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya kolkaas oo ay sheegeen in arrimo dhowr ah ay ka heshiiyeen oo ay ku jirto arrimaha duulimaadyada tooska ah Muqdisho iyo Nairobi. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo aanu doonayn inaan toos ula hadalno nooma suurtagelin. Haddaba waxaa khadka Skype-ka ee magaalada Amman dalka Urdun toos ugu jira Cabdiraxmaan Caynto oo ahaa wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya. Cabdiraxmaan, soo dhawow. wasiir horena waad ahayd madaxweynaha iminka xilka hayana 2017kii waxaad ka mid ahayd wafdi la socday safar uu Kenya ku tagay. xiriirka Soomaaliya iyo Kenya halkee laga asibay Cabdiraxmaan gaar ahaan 3 sano ee ugu dambeysay? runtii de xiriirkani waxaan nahay dalal daris oo markii daris la yahayna meelo badan la saga dhacay laakiin anu saddex xagalan ka fiirin lahaa. xagash koobaad waxay tahay darisnimada hadii laga fiiriyo saddexda dal oo aan dariska nahay oo Sohdinta la leeyahay Kenya iyo Ethiopia saddexda horta deegaano iyo dad ayaa isaga kacay ma kala maarano waa isku khasbannahay Ilaahay iska ay agdhigay ciidamo AMISOM ah ayaa saddexda dalkeena ka jooga. marka laga reebo Djibouti waxaan ognahay labada kale in dana iyaga u gaar ah ay u heliyaan joogista ay Soomaaliya ciidamadooda ka joogaan. marka wax nagu cusub maaha inay danahaasi jireen. waxa kaliya hadda isweydiin mudan waxay tahay maxay yihiin waxa soo cusboonaaday oo danihii aan hore u ogeyn ah. dalalkuna inay dana kala lahaadaan waa wax caadi sida Kenya anagu dan nooga leedahay ayaan anaguna dan uga leenahay. taas waa xagasha labaadna waa midda diblomaasiyadda. saddex week ka hor waxaa xamar tagay ogayaha joogtada ah wasaaradda arrimaha dibadda Kenya oo la kulma dhigiisa way iswareysteen murtiyeeday soo saareen ay yiraahdeen xaaladdu waa degan tahay meel fiican ay maraysaa. maanta hadalka dowladda Soomaaliya ay soo saartay marka maxaa isbedelay maxaa soo kordhay waxay ku qumanaan lahayd dowladda Soomaaliya inay caddayn miiska soo saarta faragelinta la taaban karo ay Kenya ka sheegeen. tan ugu dambayso xagasha ugu dambayso taa in laga fiiriyo waa midda siyaasadda. sideedaba siyaasadda arrimaha gudaha iyo diblomaasiyadda waa sidii dab iyo basiin in loo kala ilaaliyo. haddiise ay isku milmaan waxaa dhici karta dalkeenu in uusan yeelan calaaqaad dalalka kalena aysan nahaminin. waxaan hadda dad badan oo Soomaaliya ay baqdin ka qabaan in xiriirkan hadda hoos loo dhigay ee Kenya ay tahay wax la xiriira doorashada soo socota ee dalka waana waxa khatar runtii dalkeena ku ah mid istiraatiiji ah. laakiin markii ugu horeysay maaha Cabdiraxmaan oo Soomaaliya iyo Kenya ay safaarada kala rartaan tii horena waa loo xaliyay. marka haddii laga reebo shakigan laga qabo inay ku saabsan tahay doorashada iminka soo socota soo Kenya iyada naftigeeda laguma eedeyn karo inay docdocayn ku hayso dowladda Soomaaliya. horta waxaan kala saaraynaa Kenya dowladda dalka Soomaaliya iyo xukuumadda maalintaas joogta. dalka Soomaaliya waaba sheegay oo Kenya masaalix cad ay ka leedahay masaalixdaas ay ka wada leedahayna kuwa Soomaaliya u fiican ma ahan intooda badan waana loo baahan yahay. laakiin kaligeed maaha Ethiopia waa joogtaa. waxyaabaha dadka Soomaalida shaki gelinaya marka waxaa ka mid ah in la yiraahdo labadii dal oo waliba aan ognahay inay Ethiopia sii daran tahay waliba faragelinteedu ay ahayd mid qaawan sanadihii la soo dhaafay in la yiraahdo tanna waa noo roon tahay oo anay hawshii ay la rabay ii wadaa tanna waa ii daran tahay. xogaa arrintaas markaas lagama shaqeynayo maslaxadda dalka Soomaaliya laakiin waxa laga shaqeynayaa maslaxadda kooxda maalintaas bila Soomaaliya fadhida waana midda shakiga abuuri karta. laakiin haddii ay dowladda hadda villa Soomaaliya fadhisa khatar tareemeen soo xaq uma laha inay yeelaan sida iminka yeelaan. waaban sheegay siyaasadda iyo diblomaasiyadda waxaa la rabaa in la kala ilaaliyo. diblomaasiyaddu waa maslaxadda qaranka iyo maslaxadda dalka iyo midda qaranka waxaa ku jira dalka oo dhan Somaliland, Jubaland, Puntland dalka oo intuu ka kooban yahay oo duruufta aan ognahay maanta ka wada kooban ayaa maslaxadiisa la rabaa in la ilaaliyo marka diblomaasiyad laga hadlayo. laakiin siyaasaddeena gudaha oo aan anagu aan qasanayno xilli doorasho markii la gaaro haddii aan dhaxgelino diblomaasiyadda waxaa dhacaysa markaas
in dadka Soomaalida ay ka aamin baxaan dawladdii maalintaas xukunka haysay inay ka shaqeynayso maslaxadooda dawladuna dalkoo dhan ay matashaa waa garta cabdiraxmaan maxaa xalaha marka dhinacyadan la eego siyaasiyiinta mucaaradka qaybaha ay siyaasadda Soomaaliya qosayso adigoo soo koobi dabcan de xalku waa sahlan yahay koowa in diblomaasiyadda iyo siyaasadda la kala saaro oo aan la isku milmin diblomaasiyaddana loo daayo dad waaye arag ah oo u leh oo maalintii Kenya ay alamtara soo dhaaftan xabadka gacanta ka saara inta kalena waa isku khasbannahay aan kala miirano dadka deegaanka iyo wax badan aan naga dhaxeeyo si tartiiba aan u xisaabtanno intaas ay cabdiraxmaan inta aad iyo aad u mahadsantahay waagaag hogaamiyaha TPLF ayaa sheegay in ay weli dawladda kula dagaalamayaan meel u dhow magaalada Mekelle inkastoo ay dawladda Ethiopia ku dhawaaqday in weerarka military uu halkaasi ka dhamaaday ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ciidamadiisa ay la wareegeen caasimadda Tigray ee Mekelle iyadoo aanu qofna ku dhiman sheegashadaas waxaa si xoogan u diiday TPLF kumanyaal qaxooti ah ayaa u qaxay dalka dariska ee Suudaan kadib dagaalka socda muddada bisha ku dhow sababta aan u soo baxsaday waa dagaalka balse waxa ugu weyn ee aan u go'aansaday inaan halkan u imaado waa markii ay bilaabeen inay rasaas xoogan ay ku ridaan tuulada oo dhan sababtaas ayaan u soo baxsaday maxaa yeelay Abiy Ahmed nooma ogolaan inaan nabad ku noolaano tuuladeenna ciidamadiisa ayuu u soo diray tuuladii aan ku noolaa وهاجاك BBC دا سي مدح بنان وما حقيقين كرين شاقشada laba dhinac balse wariyaheena Kalkidan Yabtel waxa uu ku sugan yahay caasimadda Ethiopia magaalada Addis Ababa waxa uu sheegayaa in dagaalkan uu noqon karo mid daba dheeraada ma caddayn karno xaqiiqda balse waxaan arki karnaa in uu jiro dagaal military ama iminka la dagaalamayo hadda waxaan fahansannahay in hogaamiyaha ciidamada TPLF ee gobolka Tigray Dabertian Gabremekail uu leeyahay waxaan ku dhownahay xarunta gobolka ee Mekelle waan dagaalamaynaa waana sii wadaynaa dagaalka waxaan fahansannahay in ka badan 40,000 oo qaxooti Etoobiyaan ah in hadda ay Suudaan joogaan kaalmo degdeg ah ay u baahan yihiin toddobaadkii la soo dhaafay mas'uuliyiinta iyo hay'adaha gargaarka waxay sheegeen inay u baahnaan doonaan $150 milyan oo lagu taageerayo qaxootigan 6 bilood waxaan sidoo kale dareensannahay in dad badan ay gudaha Itoobiya ku barakaceen balse sidoo kale waxaa jirtay cabsi ah in dawladda federaalka hore ugu sii socodkeeda Mekelle in rayid badan ay waxyeello soo gaarto nasiib wanaag sida uma muuqato hadda ma arag dhacdooyin badan oo laga soo sheegay gudaha Mekelle balse dhibaatada bani aadamnimo ayaa ah xaalad aad u xun وهاجاك talyaaniga wuxuu ahaa dalkii ugu horeeyay ee reer galbeedka ah ee uu jiro safmarka bishii March waxa mar labaad dhirbaaxa ku dhiftay COVID-19 waa dalka ugu dhimashada badan midowga Yurub dowrkan dhibta waqooyiga hodanka ah ayaa waxa haleelay goobahan saboolka ah ee dalkaasi waxa warbixintaasi inoo haya Cabdiraxmaan Bidaan Xaaji Daahir dib uga soo kabashada masiibada talyaaniga ku dhacday ayaa waxaana la tusay dhibaatada uu geystay safmarka ay u haysteen inay ka soo kabanayaan la seconda ondata ha colpito in maniera più forte laakiin markii labaad ayaa ka dareyd batii hore Dr. Demetrio Lapeta ayaa saasi noo sheegay da quello che vediamo più grave rispetto alla prima halkani waa Calabria meel aad u saboola markaad Yurub u eegto sariiraha daryeelka culus ayaa aad u buux dhaafay xaaladuna meel halisa ayay taagan tahay shaqaalahaygu waa geesiyaal safka hore ayay ku jireen sidii libaxyada ayay u dagaalamayeen haddii kiisaska ay kor u kacaan waxay masiibo ku noqonaysaa talyaaniga oo dhan anagoo keliya maaha waadkani wuxuu qaadi karaa 18 qof halkan 12 qof ayaa iminka ku jira saacad ka horna qof ayaa dhintay sariiruhu way buuxsamayaan shaqaale yaraarina way jirtaa talyaanigu waxa u haysteen inay xaaladan oo kala dhaafeen doorkan dhibtu waqooyiga hodanka ah uun may saameyn ee waxa kaloo ay haleeshay goobaha saboolka ah koonfurta talyaaniga ayaa waxaa boobay oo saameeyay maafiyada kuwaasoo nidaamka caafimaadkana dhex qaaday cusbitaallo la dhacay ayaa xidhmay dhakhtar ka hadlay musuqmaasuqa ayaa isaga la aamusiiyey
dhaqaalahaygu wuu liitaa deyntii waan iska bixin waayey marka xitaa kiisas covid oo weli yar xaaladdeena dhaqaale ma wanaagsana maafiyaduna way lacagaysatay hadda cisbitaalla ma haysanno innaga oo xaalad degdeg ah ku jirna gobolka calabria ayaa ku jira dagaal uu rabo inuu xaaladda kaga gudbo laakiin gobolkan dhaawaca ah ayaa fayrasku ina tusay xaaladiisa dhabta ah ee ka taagan. wahagaag bal iminkana haddii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawa. laba kulan oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa caawa la ciyaaraya. Leicester ayaa qaabilaysa Fulham halka West Ham ay marti u tahay Aston Villa. dhinaca kalena Tottenham ayaa dib u qabatay hogaaminta horyaalka kadib markii ay barbardhac gool la'aan ah ay shalay Chelsea kula gashay gurigeeda. Man United ayaa 3-2 uga badisay Southampton. Wolvesna 2-1 ayay ku garaacday Arsenal oo iminka taagan xilli ciyaareedkeedii ugu xumaa tan iyo 1981. weeraryahanka kooxda Wolves Raul Jimenez ayaa qalliin lagu sameeyay kadib markii uu dhaawac tarar ah ka gaaray lafta madaxa. ciyaar xalay kooxdiisu ay kaga badisay Arsenal. David Lewis iyo Raul ayaa madaxa isku dhifsaday intii aan garoonka laga qaadin ayaa lagu xiray naqas caawiye ah iyadoo loola cararay isbitaal. waxaa la sheegay in xaaladiisu ay iminka degan tahay. wahagaag aasaasiyaashii dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter ayaa sanadkan ka mid noqday barnaamijka BBC-da ee 100 dumar ee lagu xusho waxqabadka ee sanadkan dumarku sanad walba geystaan. run ahaantii dibadbaxyada ayaa ah kuwa lagu xusay wararka idaacadaha, balse sideeba lagu gaari karaa in ummaddu ay bedasho dhaqankeeda xun. saddexdan gabdhood ee ka dambeeya mid ka mid ah dhaqdhaqaaqyada bulsho kuwii ugu weynaa ayay BBC-da u waramay. warbixintanna waxaa inoo haya Junayde Faarax. sanadkan ayaa ah mid taariikhda u geli doona sababo badan, balse mid ka mid a sababaha ayaa noqonaya sida uu Maraykanku ula dhaqmo dadka laga tirada badan yahay. ma ahan oo keliya inay soo laba kaclaysa dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter kadib dilkii George Floyd ee bishii May uu geystay askari cadaan ah oo qoorta uga joogsaday, balse in gabar ay iska dhaleen waalidiin madow iyo hindi ah ay markii ugu horreysay qabato xilka madaxweyne ku-xigeenka. dumarka madow oo badanaa la iska indhitiro jiritaankooda ayaa in badan haddana caddahay inay yihiin lafdhabarta dimuqraadiyadda. marka tani Soomaan xilligii ay hogaamiyayaasha Black Lives Matter garowsan lahaayeen inay jirto rajo. barnaamijka BBC-da ee 100 dumarka ayaa la hadashay aasaasihii dhaqdhaqaaqan oo horay u muujisay Rajabel. xilligii uu Barack Obama talada hayay dadka waxay aad u hadal hayeen in uu madaxweyne madow talada hayo, marka waxayna yiraahdeen maxaad ka cabsanaysaan, cunsurnimadii way dhamaatay. laakiin taasi sax ma ahan. weli waxaa go'aya nolosha dadka madow. jiilkan hadda jira weli hadafkoodu waa in nolosha dadka madow ay tahay muhiim. waa wax iska cad in dhaqdhaqaaqani uu arko cidda ka talisa aqalka cad ay qayb ka noqon karto xal u helidda midabta koorka Maraykanka, balse mudaaharaadyaduna ay yihiin aalad ay ku cadaadin karaan in madaxda dalka ay wax ka qabtaan cunsuriyadda. madaxdaasna waxaa ka mid ah Kamala Harris qudheeda. kama filayn in iyada un ay astaan u noqoto bulshada aan ka soo jeedno, balse inay u dagaalanto xuquuqdooda. waana la soconnaa markii ay masraxa taagneyd oo lagu dhawaaqay in doorashada ay heleen. Kamala Harris waxay sheegtay gaar ahaan in haweenka madowga ay ka saacideen inay ku guuleystaan doorashada, ayna markaa albaabka u sii hayn doonto haweenka madow. ka dhaqdhaqaaq ahaana waa inaan kula xisaabtanno sidii oraahdaasi ay uga rumayn lahayd. madaxweynuhu Black Lives Matter wuxuu ku sifeeyey inay yihiin urur nacayb. wuxuu ula jeeday ka urur ahaan. waxaa iyadana ahmiyad gaara leh sida uu dhaqdhaqaaqani ula dhaqmi doono maamul noqon kara mid iyaga dhankooda u janjeera xilli maamulka hadda jira aysan wax ciriirah ka dhaxayn. qaar badan oo ka mid ah kuwa rabshadaha ku faafinaya magaalooyinkeenna waa kuwa taageersan Black Lives Matter. mar qura ayay dibadbaxyadii nabdoonaa u rogeen qaar rabshado wata. qayladhaantan lagu dhaleeceeyey Black Lives Matter ayaa sababay inay Maraykanka aysan codkooda siinin kuwa dhaleecaynta weyn u jeediyey dhaqdhaqaaqan,
taasoo dhiiligelin iyo faalo wanaagsan u noqonaya Black Lives Matter. aad ayaan ugu faraxsanahay sida Black Lives Matter iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee la midka ahi ay uga falceliyaan munaasabadahan iyaga oo ku soo bandhigaya hab fikir iyo siyaasad muujisay habdhaqankeenna iyo jiritaankeenna wanaagsan. dhaqdhaqaaqa wuxuu noo daahfurayaa in isbeddel tan ka weyn ay macquul tahay. aad baan u qiirooday waana ku faraxsanahay inaan u soo joogay waqtigan mudnaanta leh. وهاجاج فيسبوك يوتيوب كياد برنامجك 6 ساعة وقلا ساعتان يمكن هدي عن دب وقصة نقطة أفريقيا سوق اسمها دالك السنغال أي سيكوب عيا مجالة عاصمة ده دكار اسميال عصب أيام مال والبكا مغضى وعسيدو كلام مجالة هوي والنقطي كوح لاتمي نقشة إيهاب عصب أردي رجل نيجوري قديمة هذا محمد عبد السالمين أيا وربحنتن إنه هاي Nzinga Bimbo waa naqshadeeye shaqadeeda udubdhaxaad uga dhigtay cimilada isku dhafka iyadoo oo la adeegsanayo waxyaabaha ugu muhiimsan dhulka. fikrad ahaan waxaan doonaynaa inaan ka dhisno meelaha aan dhab ahaantii ku haysano dhoobada maxaa yeelay si toos ah ayaa looga soo qaataa dhulka kadibna waad ku dhisaysaa. looma baahna in aad meel fog u rarto marka ay timaado in si dhab ah loo sameeyo dhismayaal tixgelina la siiyo cimrada. taasi waxay ka dhigan tahay in la fiiriyo ilayska qoraxda ka faa'iideysiga hawo mareenka kadibna waxayna siinaysaa inaan helno guryo gudaha ka qabow. Nzinga waxa ay naqshadaynaysay guryaha iyadoo adeegsanaysay qaab dhismeedka ciidda 3 sano ee la soo dhaafay waxaana ay si dhow ula shaqaynaysay Dudu Deme oo gacan ku lahaa inta badan dhismaha casriga ah ee Senegal. sanadkii 2010 waxa uu asaasay shirkad samaysa bulkeetiga iyadoo adeegsanaysa dhoobada. markii aan bilownay 10 sano ka hor runtii fikradeen waxay ahayd inaan shaqayno. haddaad fiiriso goobtan koronto xitaa ma haysano waxaan haysanaa matooro dabka dhaliya waxaan go'aansanay inaan ku shaqayno oo kaliya mashiinada gacanta oo aanan isticmaalin korontada. waxaan geyn karnaa xarigga si loogu dhiso marka uu wax yar ka fog yahay goobta dhismaha. laakiin shaqada noocaanihi waxa ay leedahay caqabado u gaar ah. sanadihii la soo dhaafay Dudu waxa uu arkay kororka dalabka. mid ka mid ah sababahaas ayaa ah in dhulka uu u adeegsanayo uu yahay bilaash si fududna loo heli karo kana raqiisan isticmaalka shamiitada. sidoo kale dhismayaasha noocani ah waxa ay ahaanayaan kuwo qabow sidaa darteedna uma baahna qaybo badan oo hawo qaboojiye ah. si kastaba ha ahaatee qarashka shaqaalaha ayaa sarreeya. waxaan u baahannahay inaan isticmaalno koronto haddii kale ma awoodi doonno inaan soo saarno bulukeeti ku filan waqti go'an gudahood. mashiinka gacanta ayaan ku samaynaa 1,000 bulukeeti maalintii taas oo ay sameeyaan koox ka kooban 10 qof. tani waxa ayna siinaysaa inaan ku dhisno dhismayaal badan oo dheeri ah muddo gaaban. iyada oo dhismuhu uu sii kordhayo dalka Senegal macaamiisha ayaa aad uga foojigan cimilada isku dhafka iyo faa'iidada joogtada ah iyadoo la isticmaalayo naqshadaynta dhulka. waxaana ay u muuqataa in dhaqdhaqaaqu uu ka faa'iideysanayo fursadda. wax walbana waa loo diyaariyey si suuqani uu si dhab ah ugu kobco. waa ciidda dabiiciga ah oo looga maarmay sibirka iyo shamiintada. hal abuuryaal cusub ayaa xiliba soo baxa kuwani waxay ahayn kuwa Senegal. ugu dambeyntiina aan idinkaga tago shay bir ah oo daahsoon oo laga helay saxaraha Utah isbuucii hore misana la waayay. waxa uu shaygaasi qabsaday bogaga hore ee jaraa'idka caalamka. sababta loo dhigayna wali lama oga. xafiiska Utah ee maareynta dhulka ayaa sheegaya in qaab dhismeed sharci darro ah lagu rakibay halkaasi oo ay ka saareen cid aan la aqoonaya sidaa yeeshay baa leeyahay. dadka qaar ayaa lagu arkay aagaas laakiin sida qaab dhismeedkan halkaas uu ku yimid iyo sida kadib looga saaray wali waa sir qarsoon.